dadka madaxda waxaa lagu leeyahay inay dadka muslimiinta aan wanaagooda ka taliyaan inuu wax uu ka fakara ay noqoto danta caamka ah dadka caamadaana waxaa lagu leeyahay dadka madaxda inay ateecaan ceebtooda asturaan xantooda iska daayaan wanaagay u sheegi karaan ay u sheegaan wixii wanaaga iyo tala ah ee habboonna inay u sheegaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy ina allaha tacaala yardaa lakum halaathan wayakrah lakum halaatha xadiidka imaamu axmed warinayo ilaahay subxaanahu wa tacaala saddex buu raalli idinka yahay saddexna waa idiin nacay saddex buu raalli idinka yahayo yardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shaya ina keligaa caabudaan cidna aydan ugu shiriig yeelin وأن تعتصموا بحبل الله جميعا إلهي حرقي سنين وذا قبصتان من مدينة إلى لسان يعني ككو وإن إلهي عبادتي سو خالص يالو لبا وإن مسلمين وذا شرك إلى لسان وإلهي حرقي سا أكو ذا شرتان وأدوا أنا نقنن مسلم ككلك حين يكلا في القنية صدح وأن تناصحوا من والله الله أمركم إنا نصيحيسان عدة إلهي مدحضة يدين كدو ووناك وشيكتان صدحنا والله يدين لنعي قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال صدحنا والله يدين لنعي على يدي وقيل وقال وحال يدي ديسك دافع بينهم بتشيء آخر قداد وحال يدي وضوه أحد الكذابين بعد نغنطوط الله بضا بين عالمين waxaa la yidhidu ma fiicna saa daraaddeed xumuhu xataa ma faafeen haddaanad adigu noqonaynin kii faafinaya hataa hadduu xumo jiro in la asturaaba fiican haddii la inkiri karana in la inkiro oo la tirtiro laakiin in la wariyo oo dadka lagu sii dhex faafiyo oo aad tidhahda ma og tahay waxa dhacay midaan waxbaba ka qaban kara inaad kusii akhrido isna uu mid kale kusii akhriyo xumaha la faafiya diin ahaan ma bannaana qiila waqaashu ma bannaana سؤال بدندنا ما بنانا أما إن الدورسية عادة كذا سؤال شبديسي أما سؤال علمي أنا وحبك هذا فائدة هنا ندرسه تجناته شيخ وحب ويديه سؤال بدل تاجنتي سؤال شبدنا ما فينا دانا وح منفعك وجرين فصدق هذا حولها إلا ضيعوا الله لميو إيانا ما بنا صدق هذا والله يدين نعيب النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام حديث الترمذي ورينا يوحى كمده نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه إلهي وجهي سهل نور يبو النبي عليه الصلاة والسلام عد وركيغا مقشه وليس إلى لسه دبتنقى ددك كلسي قارسيسه وحاب الله أركاه mid soo xambaaray inuu gaarsiiyo mid kale isaga uga sii faham badan oo uga sii dhaqan badan aduu warka xadiidkaad maqashay intaad kaga dhaqanto waxba laga yaabaa kaad u sheegtaa inuu kaaga dhaqan bato ajarkaad ka heshay inuu kaba bato intaad adigu ku camal fashay wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam halaathun laa yugallu calayhinna qalbu muslim saddex qof muslimi laa yugillu iyo laa yagallu labadaba way xarakeeyaan لا يغل هذا هو من الإغلال وخيانة لا يغل هذا هو فتح كدكتنا واتي حق دقاهي قلب قف مسلمي مخيامة يا ممدي دا ما محاسده وامحي إخلاص العمل لله إلهي عملك إن له كرياله ومناصحة أئمة المسلمين ذاتك مسلمين تيما ضحضا إن لا نصيحيه ولزوم جماعتهم جماعة دنا إلا لازمه فإن الدعوة تحيط من ورائهم أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام كان مسلمين جودهان وقولنا سيحيني قارهان وقولنا سيحيني دل يرى قار بقولنا سيحي أو أزواج قار بقولنا سيحي أو عد والبوصيات كيسو آدو تربدن ينوم ضدك مسلمين تردنوا قارسيين نصيحته تعيير معها عيبين معها أما عنان معها قبل بان النصيحة ده وحي وسطها قف قوانون النصيحين لكن وضع عنان نسا عنان معها وانون النصيحين وضع عيبين نسا هذا وحي وحي سميسا كي يكبط سميسا عين كبوت سمي
waxaad iska dhigaysaa inaad naseexaynayso laakiin waxbaad ceebaynaysaa naseexadu waa qofka muslimka ah haddii gaar loogu sheegi karo in gaar loogu sheego hadday dan caama tahay oo dadka oo dhan ka dhaxaysa oo dadku aniga aaban gaadhaynina dadka kale gaadhsiin karaya inaad u sheegto ciddii gaadhsiin karta si guud waxaynu odhan karnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay qofka mu'minkii qofka kale mu'minka muraayad buu u yahay buu nebigu yidhi almu'minu mir'atu lmu'min waalmu'minu akhu lmu'min yakufu canhu daycatah wayaxuutuhu min waraa'ihi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam mu'minku mu'minka kale muraayad buu u yihi muraayaddu maxay kuu qabataa muraayadda intaad is hortaagto ayaad isku eegtaa dabeetana iyadoo aamusan bay kuu sheegtaa ceebtaada halkaa xabaja kaaga taal halkan uskag baa kaaga yaal halkan si fiican umaad maydhin ceebtaadoo dhan bay kuu sheegtaa ma ceebtaadoo quray sheegtaa maya quruxdaadana waa ku tusitaa intii fiicana kugu taallana waa ku tusidaa idan nebigu wuxuu ku tilmaamay mu'minku mu'minka kale muraayad buu yihi macnaheedu waxa weeyaan qofka muslimka aad ku aragtay ceebtiisa si latifan ugu sheeg si uu isaga tirtiri karo dhibina aanay u soo gaari karin markaasuu nebigu wuxuu ku tilmaamay mu'minkaasi mu'minkaa kale inuu muraayad u yihi mu'minku mu'minka waa walaalkii buu nebigu yidhi yakufu canhu daycatah wayaxuutuhu min waraa'i wixii alaabtiisa iyo wixiisana waa u ilaaliyaa wax dhibana ma gaadhsiinaya macnuhu guud ahaan waa intaa idan naseexada lagaa rabaa tacyiib maaha waa inaad si fiican wax ugu sheegto waa inaad qofka fadeexadaynin waa inaanad muraayaddu ceebta markay kuu sheegto ma rikoodh garaysaa se markaad ka dhaqaaqdana muraayaddu waa tirtirmaysa kamaraadka ma rikoodh garaya muraayadda caadigii waxba ma rikoodh garayso soo saa maaha haddaad qofka ceebtiisa xejise ka war kaas beri buu caynka ayaa caynkaa sameeyo waan la teliyo saasaan idhaad qaata waa ceebtiisi iyo aad recorded ka dhigto aad hayso oo waktigaad u baahato aad ama ku ceebaynayso ama aad ku dhibayso muraayad haddaad tahay waxay ahaan lahayd inaad ceebtaan record garaynin inaad si qabow oo fiican wax ugu sheegto si wax kaaga qaadan karo maaha si canaana walidaalik ayaa ilaahay nebi muuse markii la yidhi la soo taliyo wuxuu soo sheeg fircawn waxaa lagu yidhi faquulaa lahu qawlan layinan lacallahu yatadakkaru aw yakhsha isagoo fircawn oo la ogyahay shaydaannimadiisa ayaa haddana ilaahay yidhi si qabow wax ugu sheeg idan ayuha alaxiba waan soo koobaynaa dadku waa sooman yahay waxaan ku koobaynaa waxa weeyaan قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قرآن يدا إلهي وركيدا وينوسو قوري إنه نفكيدا فهمينين إنه حتى هدينا لشوكتا أفكيدا فهمينين با إلهي كتاب كيسا خالد كاينو سو قوري وحلاني وحلو سو قوري وحكم دا إني وحشاك تاي وينو كفايدا يسنو waxsheegaasiyo ah iyadoo hal xabad oo kaliya ay mas'uuliyad isa saartay mujtamaceeda dhami siduu u badbaadi lahaa waa hal xabo ayaa mas'uuliyadda qaaday inay bulshadeeda oo dhan siday u badbaadi lahaayeen qaado ثاني الأمر inay u sheegto wixii ay ku baxsan lahaayeen mushkilad qura kamay waramin ee waxay sheegtay xalku wuxuu yahay udkhuluu masaakinakum waxay kaloo u sheegtay haddii xalka la qaadan waayo waxa ka ratibmaya inay tahay laa yaxtimanakum sulaymaan wa junuudu waxay kaloo u sheegtay cidda dhibtu ka soo gaadhaysa cid aan iyaga dhib la rabin inay tahay laakiin ficilkooda waxa ka dhalanaya inuu yahay dhibtaasi inay timaado waxaasoo dhami mid waliba waa cashar keligii la sharxi karo keligiina nusuus iyo adilo tiro badan loo soo naqlin karo laakiin waxaan ku talagalnay inaan intay namladu ku koobsatee ilaahayna inoogu koobaynana inaynu ku koobno inaynan kaba badin intaasi waa maxay digniin iyo amar iyo nahyi iyo bulshada wixii khayrku ugu jiroo dhan oo loo tilmaamo qofka mu'minkina inuu dareemo nasiixadaasi walaalkiisa kale muslimka ah laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih
qof kastoo mu'mina iimaan kaamila ma yeelan ilaad walaalkaa waxaad naftaada la jeceshay aanad ilaa aad kala jeclaato iyo man satara musliman satarahu allahu fi dunya walaakhira dadka muslimiinta inaad ceebtooda faafin ee inaad si quman waxaad ugu sheegto sala allahu calaa nabiyina muxamedin waala alihi wasaxbihi wasalam